waxaan markii hore ka bilaabayaa inaan u hambaliyeeyo oon u tahniyadeeyo ardayda qalinjabiyey ee ku guuleystay waliba inay dhammeeyaan waxbarashadoodii iyagoo dalkoodii hooyo jooga. waxaan hubaa marka ardaydaas horta marka hore inay waalidiin wada yihiin kulligood oo ay reero leeyihiin caruur ay leeyihiin. midda labaad inay shaqeeyaan oo aanay ahayn dad tacliinta kaliya u go-ay marka iyaga oo duruufaha ku jira inay ku guuleysteen inay waxbarashadooda sii wadaan. shukrina tusaale ayay u ahayd, tusaale ayay idiin tahay, intiina kalena sidaas ayaan rajaynayaa. marka arrin sahlan ma ahan in idinkoo intaasoo xil iyo intaasoo howlood hayo aada ku guuleysataan haddana inaad waxbarashadii dib ugu laabataan haddana ku guuleysataan. waxaan idin leeyahay dhammaantiin hambalyo. jaamacadda muqdisho xilli aada iyo aada u adag oo dadku aanay rumaysanaynin ee waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay ayaa doctor cali sheekh axmed iyo asxaab kale oo isagu markaa la socotay yaa waxay fureen dooda ah soomaaliya maxaa loo sameeyaa, ma la sameyn karaa jaamacad. weliba dadku waxay ka imaanayeen markaas wixii hore ee kacaanka uu nooga tegay oo ahayd jaamacad dowladaha iska leh. marka meeshani inay jaamacad dowlad kaliya lahayn waa la ogaayo, adduunyada kaleeta ka jireen jaamacado aanay dowlad lahayn. laakiin su-aasha waxay ahayd meel aanay dowlad jirin see jaamacad looga sameynayo. su-aal adag ayay runtii ahayd. waxaan ku faraxsanahay in dadkii maalintaas jaamacadda galay iyo dadkii waxbarashada galay ay maanta tiir u yihiin dowladnimada soomaaliyeed guud ahaanteed. waana isweydiiyey haddii aan la sameyn lahayn oo doctor cali iyo dadka lamidka ah fursado kale iska haysteen ama heli lahaayeen sida kuwo kaleba ay isaga tageen, hadday isaga tegi lahaayeen amaba aan la sameyn lahayn xaalkeenu siduu u ekaan lahaa. runtii meesha hadda aan maanta joognaa ma joogneen, duruufta hadda aan ku sugannahay iyo rajada aan qabnana ma qabneen. marka aada iyo aad ayay u mahadsan yihiin. waxaan aada iyo aada u aaminsanahay anigoo fiirinaya taariikhdeenaas iyo meesha aan soo marnay in meel wanaagsan aynu joogno, in meel fiicanna aynu ku sii socono. usbuucan waxaan la dardaarmayey ardaydii soo dhammaystay dugsiyada sare. dardaarankaygu ugu muhiimsan wuxuu ahaa oo waalidiintana hadda aan doonaya halkan inaan fariin ooga diro, caruurtiina ha u dirina meel idinka warhaynin oo aanay idinla joogin. kuwan yaryar ee dugsiyada sare soo dhammaystay dalkeenna tacliim ku filan ayaa taalo. magaalada muqdisho keliya maaha, magaalooyin kale ayay taallaa. laakiin waalidku yaanu caruurtiisa u dirin meel uusan ka arki karin oo aanu ka ogaan karin. jaamacadaha marka taas waxa ay ku khasbaysaa in baahiyadaasay u buuxin lahaayeen ay awood badan ay geliyaan. mudane ra-iisul wasaare ku soo dhowow.